5 sano ka hor markaan 15 jir ahaa, saaxiibkay ayaa soo wacay. Wuxuu igu yidhi, kaale habeennimadkii la joog, keligay baan yahay. Isla markiiba dhaqso ayaan gurigiisa ku imid, anigoo faraxsan. Habeennimadkii anagoo baashaalayna oo video games ka ciyaarayno meel kasta aan cunto ku daadaadanay ayaa kadib markaan ka daalnay filin ayaan in ka daawanay. Kadib markaan caajisnay, Anthony ayaa telefoonka aabihii ku ciyaarayay dad una garanayn ayuu waawacayay si uu uga xaraabadaysto. Markaygii markay ahayd nambaro ayaan iska waawacay. Marshanaadkaygii ayaa la iga qabtay. nin oo cod weyn ayaa iga qabtay. Kadib markuu iga qabtay wuxuu ku bilaabay inuu dhaho, waraa halow muuna dhihinba. Iyo qosqoslaya oo isqaban kari laa oo Anthony iga hoos qoslinayo ayaan yaabayba. Waxaan sidhi qofka muxuu u aaminsan yahay. Ninku wuu aamusnaa waxba muuna dhahayn, anigu isugayay ilaa intaan ka hadlayo. Qosolkii markaan iska saaray waxaan isku dayay inaan wax dhaho. Waxaan ku yidhi, niyow gaadhigaaga mid iiga soo dhiib taayarada. Magaca wariya Waxaa la dhahaa Baab. ma runtaaba magacaagu intuuna ahayn Anthony? Isla markiiba anigoo yaaban ayaan ku jaray. Anthony ayaan eegay isagoo naxdin isaguna indhaha taagtaagaya. Kadib Anthony ayaan haddana eegay anigoo cabsoon ayaan ku yidhi, Anthony qofkaas yuu ahaa? Wuxuu igu yidhi, wallaahi ma garanayo. Kadib waxaan ku yidhi, telefoonka magacaaga ku qoran? Ayuu yidhi, maya, aabbahay magaciisa ayaa ku qoran. Isla markiiba kombiyuutarka ayaan ku cararnay si aan u soo ogaano sida ninkaasi uu magaca Anthony uu uga sheegay telefoonka. Aad iyo aad ayaan u yaabanayn sida ninkaasi uu magaca Anthony uu uga sheegay telefoonka isagoona garanayn. Kadib Yahoo Answers ayaan su'aasha weydiinay, laakiin naloogama jawaabin. Kadib waxaan ku yidhi, aabbaha wac. Marka Anthony wuxuu igu yidhi, aabbahay uu igu xanaaqay haddii aan waco. Kadib waxaan isku daynay inaan dhammaysano filinkii. Markii aan barka ka tagnay annagoo iska ilownay telefoonkii wixii dhacay ninkii maskaxdayda ka baxdayba ayaan aragnay albaabka gacantiisa oo dhaqdhaqaaqaysa oo si qof uu ka soo gali rabo. Laakiinse nasiibkayga albaabku wuu noo xidhnaa. Isla markiiba Anthony ayaan ku dhahay TV-ga dami si aanan loo arkin. Daaqadda ayaan aaday si aan u fiiriyo qofka albaabka jooga. Waxaan arkay nin dheer oo albaabka hor taagan oo koofiyad xidhan si aanan wejigiisa loo arkin. Kadib uu dareemay inuu qof daawanayo. Isla markiiba waan sii daayay daaqadda naxdin daraaddeed. Labadeedaba kitchenka anagoo ku dhuumanayna ayaan maqalnay albaabka labaad ee guriga oo shanqaraya. Albaabka anigu waan ka soo galay markaan imanay. Kadib Anthony ayaan ku yidhi, albaabka maan soo xidhin baan u malaynayaa. Wuxuu igu yidhi, orodoo soo xidh, dhaqso. Ninkii albaabka ku cararaya gebigayguba waan qalalay markaan arkay qof hadhkiisii oo albaabka hor taagan. Uma malaynayo inuu arkayay, laakiin waxaan arkay albaabka oo la soo riixayo. Kadib waan cararay. Anthony ayaan ku yidhi, ina mari kale aan dhuumane. Kadib qolkiisa ayuu i geeyey. Qolkiisuna korka ayuu ku yaalay. Labadeeduba waxaan hoos galnay sariirtiisa waxaa qaranayay go'iisa oo meel kasta ku soo dadnaa. Nalama arkayn ilaa go'a laga qaado oo la fiiriyo. Meelaha in yar markaan sariirta ku hoos jirnay waxaan maqlaynay qof oo guriga dhex soo socda oo imikana jarajarta soo koraya oo kor u soo socda. Xogaa yar kadib albaabka ayaa la soo furay. Kadib marka qolka la soo galay labadeeduba aad ayaan u gariiraynay. Annagoo moodayna inaan dhimanayno. Runtii waxaan moodayay maanta inay tahay maalinkaan dhimanayay. Ayaa waxaa maqlaynay iyadoo sariirta laag marmarayo oo kawarka la furfurayo oo ninku uuna daydayayo. Anthony neeftiisa isagoo xoog u neefsanaya ayaan afka qabtay. Hadda waxba waanu maqli weynayba. Waxaan filaynay inuu ninkii uu baxayba oo uuna mar dambe meesha joogin. Gacanta markaan ka qaaday Anthony afkiisa waxaan ku yidhi, ma u malaynaysaa inaan baxsan karno? Kadib isagoo iiga jawaabi raba ayaa waxaan arkay weji aanan weligay alaha inaan ilooben iyo qaylad Anthony oo ku dhuftay markaan arkay
isagiyo sariirta laga hoos jiidayo. Markaan sariirta ka soo hoos baxay waxaan arkay Anthony oo xurto lagu hayo. Dhinacyadan fiiriyey, nasiibkayga waxaa miiska saarnaa wax midiyoo kala ah. Kadib markaan ku taagay isagiyo aad u xanuunsanaya oo qaylinaya ayuu wuxuuna siiyey waqti aan ku cararno. Isla markiiba waxaan galnay geedaha bush ayaan ku daba dhuumanay si aan uga fiirino meesha ninkuu marayo. Gurigu ka soo baxay, hareeruhu eegay isagoona deydaya. Dhulku aad ayuu madow u ahaa, namuuna arki kareen, indhihiisu wayna dhaafayeen. Mugdi aad ayay ahayd. Kadib bushkaan ku daba jirnay ayuu soo fiiriyey. Isla markiiba hoos ayaan u gabanay. Anthony ayaa isoo eegay, wuxuu igu yidhi, niyo wuuna arkay ina mari. Siduu noo arkay? Wuuna arkay kaalay ina mari. Dib ayaan u eegay, waxaan arkay isagiyo nagu soo socdaa. Isla markiiba waan yaacnay, geedaha ayaan dhex yaacanay, sidaan u cararinay. Anthony ayaa ku kufay geed meesha yaala. Xogaa yar baan yara fadhiisanay annagoo isle in nagu filan ayaad soo cararteen oo martaba nabadaba socdo. Kadib waxaan maqalnay qof oo nagu soo socda shanqadhiisa oo lacag marmaraya, laakiin madowga daraaddeed namuuna arkin. Kadib waxaan maqalnay qofkii oo dhinac kale u cararay. Isla markiiba waxaan ku yaacnay guriga si aan booliska aan u wacno. Markaan cararaynay runtii waxaan maqlayay qof la daba ordaya, shanqadhiisa geedaha jiirjiiraya. Kadib guriga ayaan ku soo noqonnay. Markan waxaan ku dadaalay inaan labada albaaboodba aan xidho. Inta uu Anthony booliska ula hadlayay, waxaan anagu aan samaynayay daaqadda ayaan ka fiirinayay, laakiin madow bay ahayd, waxba lama arkeen. Ilaa iyo maalinkan wax aan islaha maxaad u samaysay doqonimadeeda, laydhka ayaan shiday. Waxaan arkay isla ninkii oo xaggaas u taagan oo geed daba taagan oo i soo fiirinaya. Kadib dib ayuu ugu noqday geedaha. Isla habeenkii ayaa annaga iyo Anthonyba noogu dambeeyey intaan aragno ninkii, inkastoo wejigiisa aanaanu arkin oo ahna boolisku weligood ayna soo qaban ninkii. 5 sano ka soo wareegay ilaa iyo iminka waxaan isdhahaa ma isku xidhan yihiin ninkii telefoonka naga qabtay iyo ninkii guriga noogu yimid ee na dili gaadhay. Ilaa iyo iminka garan maayo, laakiin waa taa sheekadii nagu dhacday aniga iyo saaxiibkay. Maalin maalmaha ka mid ah, baraf aad u weyn ayaa nagu da'ayay. Gurigayguna meel bannaan uu ku yaalay. Habeenkaas aniga iyo walaalkayga yarun baa guriga joogay. Walaalkayga yar uu hurday, anuguna TV baan iska daawanay. Albaabka la soo qaraacay, saacaddan eg 2 habeennimo yaa xaligan albaabka qaraacaya. TV-gaan damiyo waan dhegaystay. Albaabka xoog loo soo qaraacay, meelaha 3 ilaa 4 nin ayay ahaayeen. Aniguna maalinkaas waxaan ahaa 14 jir. Naxdin daraaddeed waxaan eegay daaqadda. Isla markiiba dib baan u soo dhacay markaan arkay nin isoo eegaya. Markaan waan kacay, waan cararay, telefoonkan ku cararay. Booliskan wacay. Markaa telefoonka layga qabtay waxaa laygu yidhi barafka daraaddeed in badan bay qaadanaysaa intuu boolisku ku imanayo. Markaana waxaa laygu yidhi orodoo walaalkaaga yar qariyo, shanqadh ha samaynina ilaa inta ladin imanayo. Anigoo walaalkayga yar ku cararaya ayaan isdhahay malaha way tageen. Daaqaddaa ku noqday, cidna mayna joogin. Anigoo farxad dareemaya ayaa la soo jabiyey daaqadda kitchen-ka. Markaan maqlay daaqadda la soo jabiyey, gebigayguba naxdin daraaddeed waan qalalay. Anigu waxaan isdhahay gurigoo dhan ka carar, laakiin walaalkayga yar kama tegi kari. Korkaan ku soo cararay, isla markiiba waxaan maqlayay dad oo guriga soo galay oo isoo eryanaya. Markaa walaalkayga yar afkaan qabtay waxaan ku yidhi isoo raac. Kabadhka ayaan galnay. Kabadhka markaan xogaa yar aan ku jirnay, albaabka qolka ayaa la soo furay. Isla markii walaalkayga yar isagoo qaylo gudfays leh ayaan afka qabtay. Shanqadha aan maqlaynay waxaan filayaa
hal qof oo keliya muuna ahayn. Annagiyo naxdin indhaha taagtaagayna ayaan maqalnay booliska gaadhigiisa oo soo ciyaya. Waayar kadib albaabka ayaan soo furay. Markaa waxaan maqlay meelaha 3 ilaa 4 qof oo jaranjarta kasii dhaadhacaya oo sii baxsanaya. Raadkooda ayuu boolisku raacay oo laga soo helay geerashkayaga. Boolisku kadib wuxuu noo sheegay mid nimanka ka mid ah inuu baaskoolad watay. Gabar ku dhacday. beri waxaa jiri jiray ka yaroo Joey la dhaho oo aan daris ahayn oo si doqonnimo ay jecel. Markasta aan banaanka usoo baxo isaguna uu soo bixi jiray si uu ii daawanayo. waxaana filayaa saaxiib umuun haysan markasta gurigu joogi jiray. wiilka 1000 jeer waan isku dayay inaan tuso inaanan jeclayn laakiin muuna fahmi jirin. markaan anigu aan ka daalay waan u tagay waxaan ku yidhi kuma jecliya idaa. markaa wiilkii wuu xanaaqay si uu caruur yar yahay. anigu yaab ayaan fajacay waxaan is yidhi wiilku ma waalan yahay. hal habeen anigoo guriga keligay lagaga tegay ayay sariirteedu dhaqaaqday. markaan sariirta hoosteedaan eegay waan qayliyay markaan arkay Joey oo ku hoos jira. intuu soo baxayay ayaan baxsaday. gurigiisaan aadan ku qaraacay. marka waalidkiisu albaabka iga fureen waan uga sheekeeyay waxa wiilkooda uu sameeyay. markaa booliskan wacay way i baariyeen laakiin ani ma dhagaysan. markaa boolisku waxay qabteen isagoo weli qolkeeda ku jira. wuxuuna yidhi maaha markii ugu horreysay aan gurigeeda galo. qolkiisa waxaa laga soo helay sawiraan aniga ah oo uu ku dhejistay meel kasta. sawirka ilaa imika cabsi geli ah xaggan anigoo ay hurda oo uu sawir iga qaaday. maalin maalmaha ka mid ah aniga iyo xaaskayga oo badda jooga ayaa xaaskayga waxay tagtay musqusha. kadib markay soo noqotay waxay igu tiri nin ayaa markaa musqusha ka soo baxayay waddada iga xidhay. markii dambe waddada wuu ii baneeyey maxaa yeelay 2 qof oo kale ayaa rabay inay musqusha galaan. waxaan weydiiyey ninku siduu u ekaa laakiin waxay tiri waan waayey meeshuu maray. cadceeddu markay dhacday annagiyo hoteelka ku noqonaynaa ayaa boolis meesha jooga ayaan u sheegnay ninkii haddii oo kale hadhow uu soo noqdo. isla habeennimadkii markaan soo cashaynay annagiyo hoteelka ku soo noqonnay oo seexo isle ayaa albaabka la soo qaraacay. markaan albaabka daloolkiisa aan ka eegay waxaan arkay nin oo shaqaalaha dharkiisa xidhan. albaabka markaan ka furay xoog ku soo gal ayuu isdhahay laakiin dib ayaan uga celiyey. waxaan ku yidhi maxaa rabtaa? wuxuu yidhi alaab ayaan kaga tegay guriga markaan kilin garaynayay. kadib waxaan ogaaday inuu xaaskayga uu fiirinayo. marka iyaduna ay aragtay way qaylisay waxay tiri wakaa ninkii. anigiyo weli fahmin waxay leedahay ayuu cunaha ninkii qabtay. markaa kadib jeebadiisa xag dambe muddi uu kala soo baxay ayuu ku qabtay. anigiyo naxdin indhahaas ku hayaa ayay xaaskaygu laydh ay madaxa ka jartay. kadib laydhka markii ka jartay ninkii uu suuxay laakiin dadkii nagu xigay oo dhan ayaa soo maqlay. ninka dhiig badan ayaa ka socday. markaa booliska ayaan wacnay si ninka loo caawiyo. kadib boolisku uuna waraystay laakiin dadkii ayaa sheegay waxay arkeen oo dhan. dib waxaana loo sheegay ninka intuu ahaa nin aana caadi ahayn oo xanuunsanaya oo ilaa iyo in badan jeel la geliyey oo gabdhaha dumarka ah wuxuu doono uu ku sameeyo.